عدلسيد isla Soomaaliya intana ka bixin wararkaasna filim isaguna ay jileen jilayaal reer Kuuriya Koonfureed ayaa waxa uu noqday filim kala kacay isla markaana cirka isku shareeray kaasoo ay kaga hadlayeen wixii ku dhacay xubno diblomaasiyiin oo reer Kuuriyada ahaa oo labada Kuuriya ah kuwaasoo ay mashaqo ku qabsatay gudaha dalka Soomaaliya sanadkii 1991 sida ay wararku sheegayaan filimka ayaa markii horeysay waxa diiradda lagu saareeyay qaabka uu u dhacay rabay kulan uu doonayay in safiirkii dalka u fadhiyay Kuuriyada Koonfureed Soomaaliya uu la yeesho madaxweynihii Soomaaliya liqliqanayay markaasi Maxamed Siyaad Barre kaasoo ay ku kaceen maleeshiyaad qaab qabiil u hubaysnaa oo ka tirsanaa markaasi wixii loo yaqaanay kacdoonkii USC waxaana la sheegay in Han Shin-san oo asaga markaasi uu matalayo jalaaga la yiraahdo Kim Yon Sok uu doonayay inuu kulan la qaato madaxweynihii Soomaaliya xilligaasi Maxamed Siyaad Barre ka hor intan jidka uusan kala kulmin cawaaqib xumo iyo waliba rasaas taasoo ku qasabtay inuu kulanku ka daaho dabadeedna kulankiisaasi lagu kansalo oo lagu kala kiciyo filimka waxa uu sidoo kale taabanayaa halgankii ay dalalkaasi waa waqooyiga iyo koonfurta ay ugu jireen in ay qaaradda Afrika ay saameyn ku yeeshaan Soomaaliya waxay ka mid tahay dalalkii qaaradda ee ku jiray golaha qaramada midoobay isla markaana awood weyn ku lahaa dalal badan ayay Soomaaliya waxay qayb ka noqotay in lagu daro xubinimada qaramada midoobay oo xataa uu ka mid yahay Shiino waxaana ay si weyn u doonayeen inay kulankaasi ay yeeshaan laakiin waxa la sheegayaa in marka uu kulankaasi safiirka Kuuriyada Koonfureed uu sii socday uu safiirka waqooyiguna uu la joogay Mr. Siyaad filimka waxaa sidoo kale la sheegayaa ama laga arkayaa iyadoo qayb ah sheekada ay ku jirto in ay kooxdahaasi ay dagaalameen kadib markii labada kooxood ee labada safaaradood ay isku arkeen markaasi in ay khatar isku yihiin kadibna dagaal dhexdooda uu ka dhacay waxa la sheegay in ciidamadii Soomaalida ee ilaalinayay ammaankooda ay ka tageen markay arkeen in Kuuriyaankii dhexdooda isdilayaan kadibna waxa la sheegay in weeraro ay uga yimaadeen dagaalyahanadii maleeshiyaadka ee iyagu doonayeen in xukunka dalka ka tuuraan muuqaalo ay soo duubeen oo muujinayay sida uu ekeed magaalada Muqdisho sanadkii 1990 ayaa muujinayay magaalada oo lahayd wadooyin aad u dhisan guriyo kala go'an iyo xarumo dawladeed oo qurux badan hase yeeshee ku dhacayaan gantaalaha garabka laga tuuro rasaas aad u fara badan iyo sidoo kale iyadoo ay qaylo aad u weyn ka socoto wadooyinka oo lagu gubayo taayiro iyo qashin la dhigayo wadooyin aad nadiif ugu eg markaasi waxaana la sheegay in markii ay maleeshiyaadku soo weerareen labada kooxood isdilayay ay ku khasbanaadeen inay iyagu ay istaafacaan waxaana la sheegay in filimkaas oo markii dambe loo bixiyay ama ay u bixiyeen filimkan loogu magacaabo markaasi baxsashadii Muqdisho ay markii dambe u carareen iyagoo wada socda oo istaafacaya ay galeen safaaradda Talyaaniga oo ku lahaa Soomaaliya taasoo ay doonayeen in ay ka qayb qaataan qabanqaabo u Talyaaniga ugu jiray inuu shaqaalihiisa iyo dadka muhiimka ah uu diyaarad saaro filimkan oo markaasi saacad iyo bar ka yar ayaa kala kacay waxaana la sheegay in lacagta ku kacday 20 milyan ahayd oo maalintii Arbacada karkaarka wadaartay ka badan oo soo saaray lacagtaas iyadoo la filayo in shirkadaha waaweyn ee dunida sida Netflix ay soo dalbadaan Soomaaliya ayaa dhowr jeer filim laga sameeyay dad badan waxay u arkeen inta badanna waxa lagu halqabsadaa dhibaatooyinkii xoogana waxa ka dhex muuqda dadkii caanka ahaa oo kamid yahay janankii markaasi dawladda afka ciida u daray General Maxamed Faarax Aydiid iyo waliba sidoo kale Maxamed Siyaad oo isaguna ahaa ninkii laga tuuray talada iyo saraakiil kale oo caan oo dhamaantood halkaasi ka dhex muuqanayay oo dabcan oo filim ku saabsanaa laakiin sida dadka filimka dirwada leelay ayaa waxay ku tilmaameen inaysan ku jirin dad Soomaaliya oo door ku lahaa ayadoo dad Soomaalida loo eekaysiiyay oo Afrikada inta badan galbeed ka soo jeeda ay doorarkaasi qaadanayeen kana dhex muuqanayeen wararka waxa dhinaca dibadda Maamulka dalka Qatar Amir Tamim bin Hamad Thani wuxuu isaguna magacaabay safiirada dalkiisa u qaabilsanaa doona dalalka Liibiya iyo Masar Amir Sheikh Tamim bin Hamad Thani ayaa war qoraal oo soo saaray oo soo bariyay wakaaladiisa Q&A ee dalka Qatar wararka u faafisa waxa uu amar ku bixiyay in ay shaqo tagaan isla markaana ay dalka masalaan laba safiir oo heer sare oo loo magacaabay dalalka Masar iyo Liibiya loo kala magacaabay Khalid Mohammed Al-Dosari waxa loo magacaabay inuu noqdo ergeyga dalka وقابلسان قطر دالك ليبيا halka ninka la yiraahdo Salim bin Mubarak al-Shafina laga dhigay isagana ergeyga markaas arrimaha diblomaasiyadda hogaamid doona safaaradda ay ku leedahay Qatar magaalada Al-Qahira ee xarunta dalka Masar labada dal ayaa dhawaan cilaaqaadkooda soo ceshaday kolkii Sacuudiga uu la heshiiyay dalka Qatar waxayna Masar horboodisay ama kamid ahay dalalkii uu lugaha ku jiitay boqortooyada Sacuudigu kolkii bishii June horaanteedii sanadka 2017 xiriirka cir iyo dhul iyo badba ay u goysay dawladda boqortooyada Sacuudi Arabiya kuwaas oo dalalkii daba yaacay kamid ahaayeen dalalka isku tagay Imaaraadka Carabta
dalka yari Bahrain iyo dalka Masar. Haatan boqorku waxa uu sheegay ama amirku wuxuu sheegay inay doonayaan inay soo celiyaan door kasta oo wanaagsanaa oo ay kula haayeen dunida. Qodobka ugu dambeeya daawashada qiimaha kaga tiganana ra'iisul wasaaraha dalka Armenia ayaa ugu dambeyntii lagu dhawaaqay inuu yahay qofka ku guuleystay doorashadii bishii June ka dhacday ee natiijadeeda daahday kadib markii ay diideen oo ay inay aqbalaan diideen qaar kamid ah asxaabta kuwaas oo maxkamadda sare dalka aaday isku dambeynna maxkamadda sare ay diiday in ay wax ka bedesho natiijada doorashada oo ay sheegay inay xaq iyo xalaal ahayd. haatan ra'iisul wasaaraha ayaa lagu amray inuu 15 maalmood haysto inuu soo dhiso gole wasiiro iyadoo madaxweynuhu uu saaray diiradda madaxweynaha dalkaasi Armenia Sargsyan ayaa horey ay isugu dhaceen ra'iisul wasaaraha dalkaasi kadib markii ra'iisul wasaare Pashinyan lagu dhaleeceeyay dagaalkii bishii September sanadkii hore sida fudud u bilowday kaasoo jibaha dhulka loogu dhuftay ciidankii dalka Armenia lagana qabsaday gobolka Nagorno-Karabakh ka hor inta aysan ciidankoodu aysan hantaarubla kaga dhicin halkaasi hase yeeshee ra'iisul wasaaraha Umar lagu dacaydiyay inuu isla hadlay kadib guuldaradii dagaalka ayaa se doorasho xilligeeda laga soo hormariyay ogolaaday kolkaana waxaa la sheegay in doorashadii isla isagii uu ku guuleystay qaybta labaad qatayn daawadayaal